سائلكن شيخ wuxuu leeyahay diinta islaamka maxay ka qabtaa in la marsado daawada bidaarta adiga ama daawo marso ama timaa inta soo qaadaba galgali waxaad soo ku samee laakiin bidaarta in la zuuliyo oo meeshii tima lagu beero way banaantahay wax dhiba male culimadeena mucaasiriinta ah sidaas ay u tilmaamay Sheekh Ibn Uthaymeen iyo غيرkiiba ayay waxay leeyihiin waa min baab izaalati al-ayb waa ceeb jidka soo gaadhay oo la bi'inayo waa iyo waraddi ma khalaqa Allah iyo abuurkii ilaahay jidka ku abuuray oo loo soo celinayo walaysa min baab at-tazyin walaysa min baab waxay leeyihiin الزيادة على ما خلق الله أبورك إلهي وحلق الضرية ما أبورك إلهي ولا بدلينا ما لكن وأبورك يزين دي إلهي بني آدم كالسيو بابا أضل للسوء إليني وعلى هذا الأساس واحد دي يمتر إليه شروط بيزاوبها أنت شروط بيكون حرنت ويكون بنانت هاي لكن شروط شرط يكون هذا وحوة وإلى ذا ندتك السيرين يا أضو يتموه كابو به haddaad gabadh yar doonayso inaad u been guurto oo marka atimaha aad bidaartii wax marmariso markaas wax weeyaan man ghashana laysa minna way markaa ma banaan shardiga labaad wax weeyaan timaha buubay waxa lagu soo saaray waa inuu daahir yahay nijaasa loo isticmaali karo shardiga saddexaadna waxa weeyaan waa inayna jidhka u geysanaynin darar iyo dhibaato uusan u geysanaynin oo waxyaalaha la isticmaalayo waa inayna caafimaadka madaxa iyo jidhka ayna dhibaato u geysanaynin haddii shuruudaha la helo waxay leeyihiin culimadu laa maanica wax dhiba male wallahu aclam